لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام. السلام عليكم. sheekada maanta waxay ku saabsan tahay xikmad. waa sheeko xikmadaysan oo ku saabsan farxadda. waxaa jiray laba nin oo daris ahaa oo la kala oran jiray Guuleed iyo Faarax. Faarax waxa uu ahaa nin beeraley ah oo faqiir ah, halka Guuleed uu ahaa nin hantiile ah. Faarax waxa uu ahaa nin noloshiisa ku raaxaysta oo farxad ku nool. xilliga habeenkii markay uu seexanayo, albaabada iyo daaqadaha qolkiisa ma xidhi jirin. Guuleed waxa uu la yaabanaa ninkan deriskiisa ah oo iska seexanaya iyadoo daaqadaha iyo albaabka ay u furan yihiin. xilliga habeenka aad ayuu uga caraysnaa farxadda uu ninkan ku jiro. maalin maalmaha ka mid ah, Guuleed wuxuu u yeeray Faarax, waxa uuna siiyey qasnad ay lacag ka buuxdo. wuxuuna ku yidhi, saaxiib, hoo lacagtan. waxaan arkaa inaad nolol faqiirnimo ah ku nooshahay. waxaan rajaynayaa in lacagtan ay meel kaaga soo bixi doontee. isla markiiba aad ayuu u farxay. sidii maalintii oo dhan lacagta uu u kulkoolinayay, wuxuu la gaaray habeenkii. wuxuu aaday sariirta si uu u seexdo, laakiin caawa ma seexan karo. xitaa daaqadaha iyo albaabada ayuu xiray si uu lacagta uga taxadaro, laakiin weli ma seexan karo. waxa uu kolba lacagta eegaba, waagii ayaa ka caddaaday oo ugu baryay isagoo aan gamacsanayn oo aan seexan. markii waaga caddaaday ayuu lacagtii isaga oo wada waxa u geeyey Guuleed, saaxiibkiisii qaniga ahaa. wuxuuna ku yidhi, saaxiibkay qaaliga ahow, waxaan ahay qof faqiir ah. lacagtaada hoo waxay ii diiday farxaddii aan haysan jiray, oo xalay oo dhan habeenkii waan farxi jiray. xalay oo dhanna ma seexan. fadlan hoo lacagtaada dibna ha ii siin lacag. xikmadda sheekadan waxaa laga faa'iidaysanayaa, daawade, si kasta oo lacag u haysato, farxad ma iibsan kartid. wasalaamu calaykum. لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلالا.